بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني أهز الكافر الجاني بقرآني وأحمي منه أوطاني بقرآني أهز الكافر الجاني بقرآني وأحمي منه أوطاني بقرآني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني. xafladda tartanka qur-aanka ee dhallinyarada isboortiga ee magaalada Buuhoodle ayaa sanadii afraad oo xiriira lagu qabtay masjid jaamaca magaalada Buuhoodle. tartankan ayaa waxaa qaban qaabinayay Khalid Sheekh Mubaarak Sheekh Xuseen. waxaanu joognaa waa xaflad loogu guddoonsiinayay jawaa'is arday musaabo ku soo gashay tartanka qur-aanka. runtii qur-aanku waa kalaamkii ilaahay, waana waxa ay nagu waajib tahay barashadiisu dhammaanteed inaan baranno oo xifdino lafdan wa macnan. oo u mahadcelinaya dhallinyarada ku qabatay tartankan oo Khalid ka mid yahay oo sanad soo qabta. jazakumullahu khayran ya kaabal mariyo camal wanaagsan baad haysaa. runtii waxaan oran lahaa dadaalkaas inaad ku tasjiiliso inay bartaan dhallinyaradu meesha ay dibadda ku tartamayaan inay qur-aanka geliyaan oo ku dadaalaan inaad ku tasjiiliso akhriya ku meesha waad ka helaysaan. adigana allaha barakeeyo jazakumullahu khayr iyo idinku kula soo qaadqaadisayna. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waa mahadinaynaa cidda soo qabanqaabisay iyo cidda gashay ee maanta ka soo qayb gashay labada ururka cidina allaha barakeeyo. qur-aankuna waa cibaado, akhriskiisu waa cibaado, tartankiisu waa cibaado, kutubashadiisu waa cibaado, xifdigiisu waa cibaado. waa qowlka ilaahi subxaana wa tacaala marna lagu qabaynin. marka waxaan isu koorinaynaa in lagu dadaalo oo la farsado qur-aanka. dhallinyaradaas isboortiska ah ee qur-aanka ku tartamaysay iyana mahadinay u leeyihiin. runtii waa geesinimo, sharaf bay ka helayaan inay maaragtay waryaan sii laba maalaan. waxaan rajaynayaa waa sanadkii afraad ee hadda la qabanayay tartankan. waxay ahayd falilahi alxamdu ugu buuxaa halka qur-aanka oo dhan soddonka jiska waa lagu tartamayay. وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد إله سبحانه وتعالى ومعظم نعم فرحا من القرب كريم ونوكل من معدننا ومعظم خير أبطال وحفلة ونكسن وطرق القرآن الكريم والله كمتين وصحريه لو قبتنا اليرد سبورتيا عيارتوبة أنتو بشكي markar waxaan adkaada waxaa loo qabtay tartanka ciyaartooyda sboortiga. laakiin haatan wajiyada horteeda ka muuqdaaya ragga tartame waa raggii axyaarta ah ee safkooda masaajidka noogu horreeyey. iyadoo dee sboortiku marka ciyaarayay haddana wujuuda noo muuqdaa waa raggii safka hore iyo wanaagga noogu horreeyey. ilaahi subxaana wa tacaala khayra siiyo. runtii waa wax lagu farxo. dhallinyarada isboortigu ciyaartooygu waa qayb waa xog muhiima oo ka mida bulshada. in waxa weeye qur-aanka ilaahay ay noolaynayaan waa waxaa loogu farxo. oo waxaan isleeyahay waa nicmo ilaahayna waa fujiyey. waan isleeyahay gobollo badan kama jiro weli ma maqal. waxaa dalka laga sheegaa farsamo inay وبرنامجكي سعودي قطع القرآن الكريم loo qabto dhalinyarada isboortiga ee magaalada Buuhoodle looguna qabto masjid jaamica oo aynu hadda fadhino. hawshaasi sanadkii afraad ay gashay. weli ma maqal gobol kale oo
idinkaas aan ugu wada jiraayo waxaa laga yaabaa in meelo badan laga arkayo ama codkeena laga dhegaysanayo gobollada Soomaaliya waxaan leenahay wanaagga naga dayda oo reer Buuhoodla hooseeda waxaa weeye naga dayda in waxaa weeye muhiimka oo bulshadii ka mid ah dhalinyarada ciyaartooyga bisha Ramadaan barakaysan Qur'aanka Kariimka nooleeyaan oo waxaa weeye lagu imtixaamo waxaan la qabaa culimadii hore u hadashay in waxaa weeye la ballaariyo oo raggo xanaanayanaha maamay istiqraanka intaa leh waxaa weeye ninkaa dhalinyarada ah ee uu ku dhashay ee abaabulkeeda ka dambeeyey ee saan filayo qoleylayno warraminayma isagu maalgeliya oo hawsha bilowgeeda lahaa iyo ragga kale loo bilaabayba waa walaalkii Khaalid Sheekh Mubaarak runtii wax lagu ilkowsado oo lagu farxaayo u sameeyey waxaa weeye waynu ugu ducaynaynaa ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro ilaahay cumrigiisa ugu barakeeyo ilaahay camalkiisa ugu barakeeyo ilaahay caqligiisa ugu barakeeyo ilaahay waxaa weeye reerka iyo ubadka ugu barakeeyo waa nin dhalinyaro ah noloshu hor leedahay oo cusub tahay haddana wuxuu ku bilaabay waxaa weeye wanaag iyo inuu bulshada